qaar badan oo kamid ah dadka Soomaaliyeed way xanuunsan horta Ilaahay un baana caafin karaya maalmo dhaweyd Suudaan xasuuq iyo dhibaato balaayooyin baa ka jiray xasuuqa ka jira halkaas yani heer wuxuu gaaray xataa satellite-yada cirka maraya ay soo duubaan dhiiga dhulka qolqolaya arrinkaas aad adduunka dhan uga hadlay dadka qaar baa waxay commentiga iigu soo qorayeen markaan ka hadlayo xasuuqa Suudaan ka socda khaasatan magaalada Al-Fashir la yiraahdo kale anaka reer hebel hadaan nahay 90 iyo maxaygi 1900 inta markii taariikhdu mareysay dhibaatadii xasuuqina loo geystay baa ka darnaa reer hebel xasuuqi u geysteen 1900 baa kan 1900 iyo mabaad dhan adi ruuxan commentiga qorayo haddaad 1900 iyo maxaygi wixii dhacay xasuusan tahay Ilaahay un baa ku caafin karee cudurka waa la dhimanuune wixii dhacay 1900 iyo maxaygi waa laga soo tagay 2025 ka la marayaa wixii dhacay iskaylow horay u sii soco adigu soo ma noolid miyaad dhimato 1900 iyo maxay xasuuqii dhacay miyaad raacday soo ma taagnada dunyada xaadir kuma tihid daayar caadi u noolo oo caqdadii balaayada iska daa xasbi Allah wa ni'mal wakiil qof 2025 ka 1900 iyo wixii dhacay ka sheekaynaya wallahi dadka qaar ma garanayo Ilaahay un baa garan kara